wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Aldan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland wado qorshe ay gacanta ku gelinayso dawladda Itoobiya. sidoo kale wariye Cabdimaalik Muuse Aldan ayaa soo bandhigay xogo sheegaya in xukuumaddu wado qorshahani gacanta lagu gelinayo dawladda Itoobiya waxaana hadaladiisii kamid ahaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin dhammaantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta ay taariikhdu tahay labada bisha 8aad 2018 waxa aan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku qabanaya shirkan jaraa'id. xogta ay sheegaysaa sida ay sheegayso waxa soo gaaray magaalada Burco oo ka soo gaaray dhinaca magaalada Hargeysa amar la doonayo in la igu qabto in qofka la xiro oo xorriyadiisa si fudud looga qaada waxa iska noqotay wax iska caada laakiin haddii la xirayo xamar iyaga iga dheereeya iyaga la leh xiriir muuqda iyo mid qarsoon haddii la xirayo Cabdi Ilay iyo Tigreegiisa taliskaasi wuu halaagsamay wuu dhacay inta soo hadhayna way sii rafanaysaa ibra qaadashana way noogu suganta haddii la xirayo warbaahintayda iyo wararka aanay jeclaysanayn taliska Muuse Biixi waxay noqonaysaa caburin iyo aragti kaleba yaana jirin taasina wax suuragal maaha wax la ogolaan karana maaha 7 bilood magaaladeedan Burco waxaan uga maqnaa waa lagu qabanaya iyo waa lagu xiraya runtii sharcigana waxa fiican in loo sinaado oo uu noqdo sharcigu mid dadka oo dhan xumuhay wada qabanaya laakiin hadduu noqdo sharciga wadatada ganaaxa wasiirkana gool u looga sidii uu sheegay weersame sharcigaasi sharci maaha waxa jira kuwo aaminsan in iyagu Soomaaliland dadka ka xigaan in iyaga aan Soomaaliland looga baqayn oo midha iimaankooda Soomaaliland baa midha sareeya ayaan kuwa ku sifeeyay waxay kaloo ka aaminsan yihiin qeyrkood in iimaankoodu hooseeyo iimaankooda tabcan Soomaaliland inuu hooseeyo oo iyaga looga baqayo Soomaaliland waa la wada leeyahay cid ka sareysa ma jirto waxaasina wax la ogolaan karo maaha waxa xusid mudan doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha Muuse Biixi meelo kala duwan ayaa laga taageeray dadka taageeraya waxa weeye dambay ka lahaayeen cid kasto cid taageeraysana ee dambay ka leedahay dhinacyadii taageeray Muuse Biixi waxa kamid ah taliska Cabdi Ilay waana la wada ogyahay laba arrimoodna ugu muhiimsana wixii loo taageeray Muuse Biixi kow in taliska Cabdi Ilay loo fududeeyo waxa kaga xirmay Soomaaliland laba in Cabdimaalik Sheekh Muuse Aldan waxa laga qabto lana amsiyo runtii arrinkaasi arrin la aqbali karo maaha qaabkan wax loo wado oo taliska Muuse Biixi u wado oo ah inuu xarig u adeegsado dadka ka aragti duwan yani wax xalab maaha yani waxaana inoogu sugan oo lagu dayay oo dawladaheena jaarka haddaynu eegno Ethiopiyadaas kacdoon baa ka socday 3 sanadood kacdoonkaas waxay ahaayeen caburin iyo aamusin iyo xarig way diideen dadkaasi maya bay yiraahdeen kumanaan baa kaga dhintay maanta waxa loo yeelayaa siday doonayeen dadkii madaxa kaga taagnaana maanta way hooseeyaan marka cibra qaadasha inoogu sugan Ahmed Yusuf Abdi Ahmed Shaafi Somali TV Pro